Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub waa anigoo Engineer Usama. Maanta waxaa idiin wadaa website aad ka faa'iidi doontid aan hubo markaa inaad wax badan ka faa'iidi doontid muuqaalkan. Website-kan marka wuxuu u shaqeeyaa qaab ah inaad sawiro soo gelisid kadibna sawirada aad soo gelisid uu kugu siiyo lacag. Sidee marka ku dhici kartaa? Website-kan marka wuxuu u shaqeeyaa qaab ah inaad sawiradan oo kale ay dadkan soo qaadeen aad soo gelisid. Haddii aad tahay markaa qof sawir qaade ah, website-kan wuu kuu baahan yahay markaa adigana waa u baahan tahay oo lacag ayaa ka sameynaysaa. Sidoo kale haddii aadan haysanin sawir aad soo gelisid, anigaan kaa caawin doono markaa qaabka sawir ku heli lahayd oo dadka ay xiiseeyaan sida kuwan oo kale. Kuwa markaa dadka marka ay ku dhuftaan wuu ku siinaya markaa lacag. Tusaale hadda sawirkan bidhaca oo kale waxaa soo booqday 26 qof waxaana like siisay 20 qof. Waxaana la soo geliyay sawirkan 24 Maarso. Marka sawirkan views badan saas uma sii helin, haddana saas ay tahay 26dan views lacag ayuu ka helay oo markaa lacag ayuu ka sameeyay. Waan isla eegi doonaa marka inta qiimo ayuu ku bixiyo lacag ahaan. Marka qaybtan ayaan ku dhufanaynaa how to works. Kadibna website-kan wuxuu kugu sharxi doonaa marka qaybtan wax shaqooyinkiisa iyo qaabka uu lacagtu bixiyo. Website-kan marka wuxuu kugu siinayaa halkii qof ama qofkii soo booqdo 9 city. Sidoo kale minimum payout-kiisa waa minimum payout-ka waxaa waaye 15 waxaana member ka ah marka website-kan ama xubinka ah 1 milyan oo qof ayaa isticmaasho si joogta waxaana maalinkii soo booqato 2 milyan iyo wax ka badan. Marka website-kan waa mid booqasho fiican haysto sidoo kale marka aad lacag ka sameyn kartid. Haddaba step-yadan waxaan kala saari doonaa marka qaybo badan website-kan inaad ka samaystid account, inaad markaa account-kii aad samaystid markaa sawir qaabka aad kusoo gelin lahayd kadibna sawiradii horta intaadan soo gelin meesha aad kasoo heli lahayd. Markaa saddexdaas qayb ayaan kala qaadaynaa. Qaybta koowaad horta marka waxaan ka dhigaynaa qaabka aad ku samaysan lahayd. Ugu horreyn waxaad ku dhufanaysaa marka calaamada geeska ee 3 dhibac calaamadaas markaa ku dhufatid sign up ayaa leedahay marka account cusub sidaas ayay ku samaysanaysaa. Saddexdan qayb ayuu kala saaraya. Qaybtan waa qaybta uu kugu aqoonsan lahayd magaca uu kugu bixinayo oo mar walba kugu yeerayo. Sidoo kale email-kaaga inaad gelisid, password-na u samaysatid. Intaas oo kaliya waa wax iska easy ah. Intaa markaa soo gashatid kadib waxaan isugu imaan doonaa qaybta kale. Kadibna markaa qaybtaas kasoo gudubtid waxaan ku keeni doonaa qaybaha uu kala baxay website-ka ama subscriptions wax loo yaqaano. Marka 3 qayb ayuu kala baxaa. Qaybtan koowaad waa free waxaana markaa kugu bixinaya markaa ku qaadanaysaa lacag halkii views 1 senti. Waxaana maalinkii lagu ogolyahay inaad soo gelisid 20 yacni 20 sawir oo kale inaad soo gelisid. Sidoo kale qaybtan labaad waa qaybta waxaad bixinaysaa maalinkii bishii $3 yacni 3 euro kadibna waxaa lagu siinayaa 7 senti. Waxaana markaa inta sawir aad soo gelin kartid waa unlimited yacni inta aad rabtid ayaa soo gelin kartaa. Sidoo kale qaybtan waa qayb iidan wax yar ayay ka duwan tahay. Waa marka booqashadii waxaa lagu siinayaa 8 senti waxaana markaa sawirada lagu ogolyahay unlimited. Marka sawiradaas markaa waxaa sii iibin kartaa oo sell photos as product yacni product ahaan aad u sii iibsan kartaa. Marka qaybahan waa qaybo saas u sii kala badan. Tan sidoo kale iidan waxay ku fiican tahay waxaad helaysaa meel dashboard oo Google Analytics ah. Marka anaga hadda waxaan isticmaalaynaa markaa qaybta free-ga. Marka subscribe-ta qaybta free-ga ayaan ku dhufanaynaa. Free-gan waxaa lagu dhufanayaa 1 senti. 1 senti weli hataa lacag ayaga u gooni ah oo yacni dollar ahayn waaye. Marka qaybtan ayuu ku keeni doonaa. Hadda marka waxaa u gudubnaa step-keeni labaad. Step-keeni labaad marka waxaan soo gelinaynaa sawirkan profile-keena ayaan dhisaynaa. Marka ugu horreyn waxaan soo geli doonaa marka sawir saan soo gelinay meesha aad ku dhufanaysaa qaybtan ku sawiray ama icon-kan. Markaad saas ugu dhufatid click asiisid file ayaa ka dooranaysaa. Kadibna markaan sawir ayaan dooqanaynaa sawir ku habboon. Marka tusaale anaga hadda waxaan dooranaynaa wiilkan. Sawirkan waa inuu ahaadaa cabir 500 yacni cabirkaas waa inuu ahaadaa. Marka qaybtan sidoo kale display name ayaa lahaa magaca uu bixiyay kulaha magaca uu markaa kasoo muuqan doono marka aad sawir soo dhigtid. Waxaan ku dhufanayaa marka magaca ayaan dooranayaa Usama Mukhtar.
sidoo kale qaybtan waa username hore ayaan usoo marnay. Usernameka waxay kaa caawinaysaa inaad markaa hadhow haddii aadan username soo gelinin qaybtan waxay kaa noqon doontaa marka nambarada marka haddii ay rabin inay kaa noqdaan qaybtan ayaad ku qoraysaa marka magac aad rabtid marka inuu noqdo. hadda Usaama Mukhtaar oo kale waa gelin kartaa. marka aniga tijaabo oo kale ayaan leenahay ama Usaama Mukhtaar waa iska dhigi kartaa. marka aniga tijaabo aan ku dhaafanaya maadaama ciwaanka aan rabin inaad sidaas usii isticmaalo. sidoo kale hadda waxaan imaanaynaa qaybtan header image isla hadda profilekii qaybtii aan usoo geliyo camal aan usoo gelinayaa. kadibna waxaan dooranayaa sawir uun ayaa iska dooranaya. kan oo kale ayaan doortay. mar labaad ayuu soo celiyey cafwan kii ayaa soo dooranaya. sidaa hadda waan soo geliyey sawirka. hadda waxaa noogu xigay qaybtan bio waa markaa qaab description ah inaad iskaga waxaad ku qabanaysid aad kusoo gudbinaysid sawirada nooca aad rabtid. sidoo kale qaybtan impressum wax saas aad muhiim u sii lahan ka gudub. qaybtan ugu dambeysay iyadana waa qayb sidoo kale haddii aad leedahay website muhiim ku ah oo aad markaa marketing ku noqon karto. marka tusaale ana hadda waxaan leeyahay website-kayga oo kale ayaan soo gashanayaa. marka kadibna waxaan imaanaya kadib qaybta paste ayaan ku leeyahay website-kayga ayaan soo koobiyey linkiisa. marka sidaas ayaan hadda ku sameeyey profilekayga waa dhammaystiray. bioga haddii aad rabto wax baa gashan kartaa haddii aad rabto ka tagi kartaa. kadibna update ayaan leeyahay. update ayaad leedahay. hadda markaa waxaa inoo dhamaaday stepkeenii labaad. hadda waxaan u gudbaynaa stepkeenii saddexaad. profilekeenii waa uu noo dhammaystirmay. marka stepkeenii saddexaad waxaa waaye qaabkaad sawirada ku heli lahayd. sawirada saddex qaab ama saddex website ayaa kaga heli kartaa. midka koowaad ayaa ah website la yiraahdo Midjourney. website-ka markaa wuxuu u shaqeeyaa Discord-ka ayuu la shaqeeyaa. marka waa barnaamij artificial intelligence oo aqli macmal ah kaasoo markaa sawirada aad weydiinaysid kaliya aad ku qoraysid marka sawirka nooca aad rabtid isagana uu kuusoo sameynayo. tusaale hadda office-ka xariifkan computer-ka qaybtan sawirkan ii saaran dambe computer kor fadhiyo. marka qof ayaa kusoo sameeyay oo weydiiyo computer qof kor fadhiyo office u diyaarsan yacni su'aalo noocaas ayuu weydiiyey qofkana sidaan ayuu ugu soo sameeyey. anna waa soo download garaystay. marka waddooyinka qaab sawiro noocaas sidaad ku heli kartaa. ugu horreyn waxaa loo baahan yahay inaad ciwaan ku leedahay Discord-ka inaad ciwaan ku leedahay. soo booqo Discord-ka haddii aad ciwaan ku lahayn kadibna ka sameyso application ayuu leeyahay haddii aad markaa Play Store iyo Google App Store ka isticmaalaysid intaba. marka aad soo degsatid ciwaanka samaystid waxaad imaanaysaa website-ka la yiraahdo midjourney.com. midjourney-gan qaybta description-ka ayaan soo dhigi doonaa isagana muuqaalka. marka qaybta hoose ayaa ka helaysaa linkigiisa. markaad soo gashid website-ka oo sidaan oo soo booqatid waxaad ku dhufanaysaa join the beta. kadibna qaybtan Discord-ka ayuu ku keeni doonaa haddii aad Discord-ka ciwaan ku yeelatay. marka kadib su-aashan ayuu ku weydiin doonaa inaad ka aqbashid. marka accept invite kadibna marka qaabkan oo kale ayuu kugu soo bixi doonaa. qaabka marka uu kugu soo baxo waxaad ka imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay hoos ayaad u wadaysaa. kadib waxaad imaanaysaa meel ay ku qoran tahay new payer inaad soo magacaabinaa waa kaas new payers. marka qaybahan ilaa halahan waa mid kaa rabtay ayaa ku biili kartaa. server waaye yacni meelo wax lagu soo gudbiyo oo dad badan ay ku jiraan. marka mid kaa rabtay ayaa ka dooqan kartaa haddii aad rabtid 39kaas 9kaas 69kaas 99kaas mid kaa rabtay ayaa ka dooqan kartaa. marka aniga hadda waxaan ku dhufanayaa marka midkan 39ka new payers 39 kaas ugu horeeya ayaan ku dhuftay. sawiradan yaxan ayuu soo bandhigaa oo marka sawiro cajiib ah ayuu ku sameynayaa. dadkan qoraalada aad arkaysid way weydiiyeen kadibna hore ayuu ugu soo sameeyey. marka tusaale ahaan hadda ninkan wuxuu dhahay many sunglasses in parametric
design style waxyaabahan oo kale isku daray su-aalahaas isku daray sawirkaas ayuu soo sameeyay markaa waa barnaamij cajiib ah marka artificial intelligence waaye asaga waxay noqon lahayd inaan muuqaal gooni ah kasoo sameeyo laakiin muuqaalkan ay la tegay marka tusaale haddana waxaa rabaa inaan soo geliyo muuqaal ka turjumayo technology-da oo kale marka muuqaal noocaas raadi kadibna markaa soo heshid aan isugu imaano marka ilaa haddan maanan helin mid isku soo qaadan doono kan oo kale ayaan iska soo qaadanaya marka waa kan ninkan waxaa ku qoray daddy dinosaurs mommy dinosaurs and little dinosaur marka kuwaas ayuu weydiiyey kadib waxaan ayuu soo saaray marka qeybahan ayuu kala baxaa 40 sawir oo kale mar walba 40 sawir saan ayuu weydiinaya qofka kadib asaga kala dooqanaya marka 40 sawir hadda qeybahan ay ku qoran tahay qeybahaas intaas calaamadeeyay u1 u2 u3 u4 yacni qeybo u kala baxaa haddii aan sawirkan koowaad kan haddii aan rabo u1 ayaan ku dhufanayaa midkan saddexaad oo kale haddii aan rabo u3 ayaan ku dhufanayaa sidoo kale u4 u2 marka sidaas ay u kala baxaan marka sidaad usoo degsatid mid un ayaa iskaga dhufanaysaa marka aniga hadda waa qaybtan waa igu dhamaatay tusaale hadda aan ku dhufto u1 يعني free trial ayuu leeyahay free trialka aan ku isticmaalayay waa uu dhamaaday applicationkan oo Midjourney la yiraahdo marka ima suurtagelaysa inaan soo degsado laakiin adiga way kuu suurtagelaysaa waa laga yaabaa inay kuu suurtagasho oo aad soo degsatid marka waxaa isku ogaanaysaa inuu sawirka sidaan camal kuu soo baxo hal sawir oo dhammaystiran uu noqdo marka oo aan kuwan kale camal uu noqon kadib sawirka ayaad ku dhufanaysaa waxaad riixaysaa marka shaashada waxyar markaad haystid save ayaad dhahaysaa marka kadibna sidaas ay kusoo dhalagalaysaa sawirkeyga haddaba markaa kadib waxaad imaanaysaa website-ka hadda website-kan wax sawir ay kuma jiraan sawirkii haddana waa technology kama hadlayo laakiin tusaale ayaan ku bixinayay marka qaybtaas uploading ayaad ku dhufanaysaa kadibna sidaad usoo gelisid waxaad kasii dooranaysaa qaybtaas ayaad ku dhufanaysaa sidoo kale website-kan maalinkii markaa qaybta free markaad isticmaalaysid waxaa lagu ogol yahay 20 sawir halkan ayuu kugu cadeynayaa haddii aan sawir soo geliyo qaybtaas waxay noqon doontaa 19 sawir oo way isdhimaysaa markaa sawirka qaybtaas ku dhufo si aad soo gelisid kadib files hadda sawirkii aan soo dejinayay waa kan gurilaha marka kuwan ma rabo waxaan rabaa mid ii qaasay inaan soo geliyo tusaale midkan oo kale ayaa rabaa inaan soo geliyo xarifkan qoslaya ama midkan kadibna qeybahan ayuu kuu soo saaray sawirka magaciisa ayuu meeshan kuu soo saaray description hadaa rabtid waad gelin kartaa tags yani tags nooca uu yahay category waa siin kartaa category wuxuu ka tirsan yahay tusaale haddii aan ku dhufatid waxyaabo badan ayuu kuu soo saaraya mid un ay iska dooranaya artist oo kale hadda iska dooranaya kadibna waan upload one photos ayaan dhahay marka kadibna sawirka ayuu raadinaya hadda waa refresh gareeyay website-ka hadda haddii aan soo galo sawirkii waa uu yaalaa marka sidaas ayaa sawir kusoo gelisay marka qaabkaas ayaa ugu shaqaysan kartaa website-kan halkii qof oo markaa sawirkan soo booqdo sintii ayaa lagu sheegaya marka sawirada aad soo gelisay intii ka heshay waxaan oo kale inta aad kala soconaysaa mar walba waa garad sooma inta aad kala soconaysaa haddii aad rabtid inaad share galaysid ama waxa aad dhahdid waa ka marka waxaad sawirkaa soo gelisay marka uu leeyahay hadda posted 1 minute ago marka dhaqdhaqaaqaaga inta ay kala socon kartaa inta aad followerskaaga inta followers garaysay inta following ku ah marka inta ku ogaanaysaa haddaba marka qaybtan sawirada sidaas ay kusoo samaysan kartaa oo aad lacag uga samayn kartaa marka website-kan marka haddii aad muuqaalkan ka heshay oo aad doonaysay inaad soo badino muuqaalada noocan oo kale online-ka looga shaqaysto
haddaba kusoo biiri channelkeena haddii aad ku cusub tahay. Sidoo kale haddii aad muuqaalka ka heshay like saar.